hawlaha iyo dadaalada kor loogu qaadayo bilicda iyo nadaafadda magaalada Jigjiga ayaa waxaa dhibaatooyinka caqabadaha ku ah ee u baahan in wax laga qabto kamid ah xoolaha lagu dhaqdo magaalada ee lagu sii dhexdaayo kuwaasoo dhirta nadaafadda iyo bilicda magaalada saameyn daran ku haya si haddaba dhibaatadani wax looga qabto ayaa waxa uu maamulka magaalada Jigjiga bilaabay tallaabooyin laga hortagayo xoolaha lagu soo daayo magaalada waxaana qaar ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga ay tilmaameen in arrintani laga waantoobo dowladana loo baahan yahay inay tallaabo ka qaado ciddii hoggaansami weyda awaamirta ay dowladdu bixiso waxaan u sheegayaa dhammaan shacabka xoolaha leh haddaba waa magaalo madaxdii bilicdii iyo nadaafadii iyo dhirbeeris baa laga wadaa waxa weeye in maalaamidan xoolahan imika halkan xalay taanu halkan aan joogay xafiiska dowladda hoose waxaan arkaysay ari iyo looba inqaab xad ka baxsan baabuurtii iyo dadkii iyo si nidaam loo kala wadaba waa la kari lahaa waxaan u sheegayaa farayaa shacabka walaalahayow halkani waa magaalo madax baabuurtiiba dadkiiba si looga badbaadiyay la laayahay duunya halkan lagu soo foofiyo waa sharci darro goobaha ay cunadu ka jirtay waxna ka cunayaan abaar baxina ka jirtay ee loogu tala galay xoolaha la geystaan farayaa shacabka dawladdan waxaan fari in amaamiir fiican ay farto oo horta dadka la wacyi geliyo oo magaalada xoolaha ka bixiya la yiraaho dhankiisa maareeyay ku-xigeenka wakaaladda bilicda iyo nadaafadda maamulka magaalada Jigjiga ayaa taabtay saameynta ay bilicda magaalada ku hayaan xoolaha lagu sii daayo halka wax ku arkaysaa lo ari baad arkaysaan geel la warkiis ka dah meeshu waxay isu bedeshay miyi laakiin laga bilaabo maalinkii sabti waxaan go'aan qaadanay dhibri dambeyn sax hadda waad arkaysaa way soo dhoobteen oo shalayna markii qabalada loogu tagay la wada xooliin ciishtan diyaaru ma qaar baan guryahooda ugu geeyay war bal neef kan ka xira wadada iyo meesha bal neef kan wadada ka jooji shacabka la hadal war ognayn abaar jiraan laakiin abaar haday jiraan ma aha laamigii lagu soo daayay bilicda magaalada ay loo iska xarxarto looda qaar baan geed buu cunin wadadii taagan tahay xaar bay la taagan tahay laamigi oo baawartu inay jiiraanay geedkii cunaysay wadada kuma beerna waday cun lahaydba laakiin maxay baraay ka dhacday bilicda magaalada 300 oo neef oo loodii wadada iska taagan hada tan arkayso laamigi gibrid haduu gaar jiira ka war marka dadku ma ahan cunid kaliya ariga cunid ee ladu cunidba ma ahay wadada iska gibrinaysaa iska taagan tahay marka xoolaha inaan magaalada ka joojino wana go'anta wuxuuna madaxa xafiiska maleeshiyada maamulka magaalada Jigjiga mudane Fahmi Ilyas sheegay inay sii xoojin doonaan sidii tallaabo looga qaadi lahaa dadka caadaystay inay xoolaha ku sii daayaan magaalada sanadkii ku dambeeyay tallaabada ugu horeysay ee qaadeen maamulka Jigjiga waxa ugu horeeyay waa kor qaadida bilicda magaalada iyadoo lagu beeriyo dhir kala duwan oo goobo kala duwan magaalooyin kala duwan laga soo iibinayo laguna beerayo wadooyinka waaweyn sida wadada weyn ee highway-ga iyo wadooyinka laamida dhirtii aan beernay guud ahaan ama la beerayay muddada aan sheegnay waxaa jirtay xoolo badan oo xoolo dhaqato fara badan ay leeyihiin inay dhirtii mataqaanay ay soo galaan cunaan shir kala duwan baan qabanay anagoo adeegsanay meediyaha wala la hadlay guud ahaan kaabinayga magaalada wuxuu ka saaray go'aamo ah in lagu dabaqo xeer nidaamyeedka magaalada xoolaha soo baxaya xoolahani waa xoolo inta badan lagu dhaqeeyay magaalada gudaheedii magaalada gudaheediina waa caasimad sideedana uma baahna xoolo dhax socda dhaqashada casriga iyo nidaamka casriga in xoolaha la dhaqo weeyaan xoolahaasina qof walba ku keydsada xafadiisa iyo nidaamkiisa ku ilaashado kiyaan xafad haysan ama meelaha waa inuu baadiyaha meelaha dhow inuu geystay caasimadani markaa kuma socon karto iyada waxaan la qaadanay inay ku socon karin systemkan hadda la wado oo ah in xoolihii magaalada gudaheedii lagu dhaqo waxay ku dhahay inta badan shacabku nalooma sheegin nalooma wacyi gelin marar kala duwan baa loo qabanay shirar kala duwan waxaana looga dal lahaa keliyata in xoolahan nin walba neefkiisa iska leh inuu ceshado oo gurigiisa ku haysto ama meel kale geysto waxaan ognahay caasimadda magaaladu waxay la mid tahay caasimadda ka jira dalka waxaa jira caasimado kala gedisan caasimaddan waxay u baahan tahay mar walba nidaamkii caasimadnimo inay korto magaaladani mar walba waxay u baahan tahay bilicdeeda iyo nidaamkeeda sare loo qaado nadaafadeeda haddaba waa su'aal yaa kor u qaadaya bulshada caasimadda waxaa ka saaran xil iyo waajibaad qof walba xil baa ka saaran iyo waajibaad baa ka saaran inuu kor u qaado bilicda magaalada hadda dhirtan ku taala qaar baa la keenay dalka dibadiisa qaar baa Hindiya la keenay qaar baa wadamo kale la keenay waxay u badan yihiin dhir qiimaheedu aan koobi karin qaarkood baa kor dhaafay waxa weeyaan 30,000 qaar 10,000 qiimo kala duwan baa lagu soo iibiyay dhirtan marka qiimaheedii lagu soo iibiyay neef taaga 3,000 oo bir oo ariya inuu dhir geed daaqo 10 geed ama 30,000 wax aqliga caadiga qaadan karin weeyaan marka waxaan hadda kadib waxa laga saaray go'aamo iyo bayaano ku aadan xeer nidaamyeedka magaalada
looguna dul qaadan maayo shakhsi kale iyo cid kale neefkana tallaabadeeda waa laga qaadan xeer ku dhigayo qofkana sharciga la horgeeni